kooxda Arsenal oo marti u noqotayba kooxda Southampton tan iyo markii dib loogu soo laabtayna horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska Arsenal waxa ay awoodi waysayba in ay soo hoyso halkoo gool xitaa bareejo oo waxaaba isku xigsaday laba gool daro oo isxigta laakiin xalay waxay iska qaaday heryadii gool darada iyadoona dhidhimisay guusha iyo waxa ay tahay riyaaqoodaba wuxuu bilowday isla daqiiqadii 20aad ka gadaal markii gool haye McCarthy uu hadiyad weyn farta ka saaray Edward Nketiah si xaragaysan ayuu u qaatay Bruyne ilaa iyo ugu dambeyntii shabaqada uu ku shubay. Oh, McCarthy's made a mistake and Nketiah will pounce and Nketiah will score for Eddie Nketiah. One that, given the start to the restart that Arsenal have had, they will lap that up. farxadda jamaahirta Arsenal ayaa se halkaasi ka bilaabatay waxa saxigtay daqiiqadii 86aad in Joseph Willock uu u xijiyayba kooxda Southampton oo marti loo ahaa goolkii labaad. Once and twice. The second was rather good. Willock will do the job for Arsenal. If at first you don't succeed in all that. Mikel Arteta iyo kooxdiisaba waxay isaga soo tageen istaadiyaha Emirates iyagoo soo hooyay gool weyn oo dhinac kasteetaba loo riyaaqay waana ay farxeen jamaahirta Arsenal oo u baahnaa in ay gaaraan gool dhinac kasteetaba.